aad iyo aad u daran xanuunka asagana waxaa looga bixi karaa alla ka cabsi iyo in la cibaadaysto lana ducaysto. baaqi dowladda federaalka ay soo saartay oo ra'iisul wasaaraha qaasatan uu soo saaray oo ahaa in iskuulada iyo la xiro oo goobaha shaqada ay ka socoto dadka ay isugu yimaadaan bulshada in aanan muddo 15 beri aanan isugu imaanin si habsami u socdo. wasaaradda caafimaadkana talooyinka laga qaato digniinaha ay bixinayso laga bilaabo maanta waxaan qaadanay anaga dowladdanada amaamirta ay nafartay ayaan fulinaynaa. iskuuladii maanta laga bilaabo waa xiran yihiin. marka bulshada reer Beled Xaawo waxaan ugu baaqayaa isku duubnaan, midnimo, horumar ayaan ugu baaqayaa. dowladdanada amarkeedana waan qaadanay, waa fulin. anigoo gudoomiyaha degmadana waxaan alla ka baryayaa in cudurkaas ilaahay noo keeno. walaalahan dariska aan nahay sida Mandera, Suufka, Beled Xaawo waa laba indhood oo aan kala hurdin. dad kala hurdo ma aha, dad la kala celin karana ma aha. waa dad wada dhashay, waa dad ganacsi ka dhaxay, waa dad hal naf bayin. dhammaan culummada saddexda degmo waxaan ugu baaqayaa anigoo Cabdicasiis gudoomiyaha degmada inay alla ku xirnaadaan, noona duceeyaan, masaajidada laga qanuudo, dadka jamac iyo manfaradba loo duceysto. cudurkaas muslimiinta dhammaan inuu ilaahay gelinin, annagana ilaahay noo keenin. sidaas ayaan ugu baaqayaa. waad mahadsantihiin.